waxaa maanta maxkamadda sare ee Puntland la horgeeyay saddex xukumaneed oo loo haysto kiiska lagu kufsaday laguna dilay gaalkacyo Caashe Ilyas Aadan garsoorayaasha ayaa ugu horeyn sharaxay nidaamka ay maxkamaddu u socon doonto. maanta waa maalin sabti ah taariikhduna tahay 17 bisha 8 2019 maxkamadda sare dowladda Puntland waxay u fariisanaysaa dacwad ciqaabeed ee cabasho ka soo qaateen xafaasanayaasha kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame ina Faadumo Cali 24 jir ah ku dhashay Muqdisho ninkaas ma jooga waa jooga Cabdishakuur Maxamed Dige ina Khadiija Maxamed 46 jir ah ku dhashay Muqdisho Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame ina Faadumo Cali 32 jir ah ku dhashay Hargeysa ninkaas ma jooga waa jooga intaba waxa qaramo kala ah qareen Mustafa Maxamed Jaamac حاضر واجوان كاس قرين حبيب عبد الله عيسى واجوان قرين أحمد سلاد محمد يا واحد نسدح دن الشرعي هذا نقول قد ساكوه شيسين قرين عبد الرزاق محمد فارح يا قرين واحد أنا بخات دقيقة وطهر dhammaantood qaramada magacyadooda aan sheegay waxay cabasho ka soo qaateen xukunka Maara Isbaaro Gaana Isbaaro 115 kuna taariikhaysan 30 bisha 6 2019 kana soo baxay maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal ayna dhinaca ka tahay marxuumad Caisha Ilyas Aadan iyo xafiiska xeeraryaha guud ee dowladda Puntland oo dhibana ka ah iyo ahalkeeda kuwaas oo ku aadeysan qodobka 434 maxkamaddu way furan tahay waxaana bilaabaya soo bandhigida dacwada cidda soo qaadata cabashada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mid ka mid ah saddexdii xukumaneyaal oo lagu magacaabo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame horena loo soo mariyay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal iyo maxkamadda rafcaanka ayaa maanta ka hor qirtay maxkamadda sare ee Puntland inuu ku lug lahaa dilkii kufsiga gaalkacyo loogu geystay 25 February 2019 Caashe Ilyas Aadan intaasi kadibna kiisku waxa uu yeeshay waji cusub maxkamadda ayaana go'aamisay in dib loo dhageysto kiiska 19 bishan oo ku beegan maalinta Isniinta xiraalay ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed ayaa sheegay in kiisku meel fiican uu hadda marayo isagoo la hadlayay bahda saxaafadda maanta oo ahayd Agost 17 2019 maxkamadda Puntland waxay u fariisatay garmaqalkii dhageysigii kiiskii Caisha oo ay racfaan ka soo cabasho u qaateen saddexdii xukuman labadii maxkamadood hoose ee ku xigay maxkamadda waa ka duwaneed labadii maxkamadood hore waayo xukumanayaasha siiba xukumanaha koowaad Cabdifataax qiraal wuxuu ku noqday maxkamadda horteeda ka cadeeyay inuu Caisha kufsaday ayuu cadeeyay Cabdishakuur Maxamed Digana wuxuu cadeeyay lacagtii qabriga uu ku inkiray inuu bixiyay asaga lagu soo shubay taasina waa guul iyo cadaalad ay heshay Caisha maanta ayadoo qabri ku jirta yaa qiraal ay heshay waxay heshay qabriga lagu qarin lahaa cidii lacagta bixisay maxaa kale wixii su'aalo diyaar baan in maqam la tiro oo sana wax qabtay uu yiri qalbigiisa markaa kiiskiisa nooc loo jahaysan waa wardambiyadna soo gaaray wardambiyada hadduu ku soo gaarana hay'adaha amniga ayaanu amri doonaa in la soo qabto ninka isaga waana fududahay haddii la soo qabto dhacana laga qaadayo marxuumadda dhacankeedina waa la hayaa hadday isla falgalaan sharaacadda iyo qawaaniinta dalka waxa u degsan ayay marayaan haddii isla falgali waayaana toddobadii hore sida loo sii daayaa loo sii deenaya
cabdilaahi cabdinuur yuusuf cabdilaahi bakayle telefishinka caalamiga ah Ariel TV magaalada Garowe.